bismillaahi raxmaani raxiim kulan wanaagsan qodobada ugu muhiimsan wararka Soomaalida iyo caalamka waxaa ugu dooran gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Filish oo ku dhawaaqay in dad badan uu yaqaano ay gudaha dalka ugu dhinteen cudurka COVID-19 kuwa kalena ay hadda la ildaran yihiin baaqa uu jeediyay bulshada Muqdisho ku dhaqan iyo guud ahaan dalka xilli la leeyahay khilaafka kala dhaxeeyay wasaaradda caafimaadka ayuu soo banaan bixiyay gudoomiye Cumar Filish qof laga helay calaamadaha corona waxa la leeyahay maanta oo qamiis ahayd ayuu Muqdisho ugu dhintay cabsidana waa ay dhaaftay heerkii la filayay markan mas'uul ka tirsanaa Puntland oo iska casilay xilkii uu ka hayay maamulkaas si gaarana madaxtooyada Garowe ayuu ka shaqeynayay mas'uulkii is casilay sharax xasaasi oo Muqdisho ku dhaxmaray madaxda qaranka sida ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha waxaana lagu falanqeeyay arrimo la xiriira cudurka corona iyo go'aanada laga soo saaray shirkaasi qarax hal qoys ay ku halaagsameen oo maanta ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose iyo wararkii ugu dambeeyay qasaaraha inta uu gaarsiisan yahay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu aqbalay wadahadal uu la galo dawladda federaalka ee Soomaaliya laba Axmed waa qorqor iyo waliba xaaf oo gacmaha isku qabsaday dhuusamareeb una heshiiyay qadiyada Galmudug khilaafka jirayna la xalliyo lacag ku dhow 1 milyan oo dollarka Mareykanka oo xaaf in la siiyo markan lagu ballamay jawaabta uu ka bixiyay Cali Saciid Fiqi kadib guushii nabad iyo nolol ay u sahashay gudoonka baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya u diyaar garooba qodobadaas oo faahfaahsan taariikhdu waxay ku beegan tahay 9 bisha 4 ee Abriil sanada 2020 gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamed Cumar Filish ayaa maanta oo qamiis ahayd ka dhawaajiyay in dad badan uu yaqaano ay ugu dhinteen gudaha dalka cudurka corona waxa uu sheegay inay jiraan dad badan oo la ildaran sidaas oo kale cudurka taas oo warwar ay ka qabaan in cudurka uu magaalada dadkeeda ku sii faafa hadda ay dareemayaan isagoo ka hadlayay dhagax dhig uu ka sameeyay wado laga dhisayo inta u dhaxaysa General Daawud degmooyinka Boondheere iyo Warta Nabadda ayaa la sheegay in ay sidoo kale ay halis caafimaad in bulshada ay hadda magaalada Muqdisho hadda dareemayaan isagoona dadka ugu baaqay inay ka feejignaadaan wuxuu shacabka ka codsaday in guryahooda ay ku nagaadaan gudoomiye Cumar Filish waxa uu warkiisa sheegay in aan la beensan isla markaana dadka cudurka la jiifa xarumaha caafimaadka uu yaqaano ay aad u badan yihiin waxa la sugayaa warbixinta wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ay soo bandhigto maadaama halkiis la og yahay kaliya in cudurka uu ugu dhintay gudaha dalka balse duqa caasimada ee Muqdisho Cumar Filish ayaa soo banaan bixiyay dad badan cudurka ugu dhintay gudaha dalka Soomaaliya kuwa kalena hadda ay la jiifaan waxaana tani ay soo shacab bixinaysaa baalayir khilaafka ka dhex jira maamulka gobolka Banaadir iyo wasaaradda caafimaadka oo maalmihii dambe la hadalhayay qofkii labaad ayaa cudurka coronavirus ugu geeriyooday magaalada Muqdisho maanta oo qamiis ahayd wax ka yar 24 saac ayaana ay ka dhigaysaa tirada kiiskii labaad ee cudurka COVID-19 ugu dhintay magaalada Xamar qof aad u xanuunsanaa ayaa shalay Arbacadii waxa la geeyay cusbitaalka Digfeer oo ay Turkida hadda maamulaan gudaha Muqdisho isla markaana baarista qalabka radiology-ga ay dhaqaatiirta mariyeen kadib ku sheegeen calaamadihii COVID-19 in laga helay waxaana lagu la taliyay in la geeyo cusbitaalka Martini hase ahaatee gudaha cusbitaalka Martini ayaa ugu dhex dhintay sida la sheegay caabuqa corona wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaana la leeyahay waa ay ka gaabsatay ka hadalka kiiskan kale inkastoo ila xog ogaala iyo qaar kamida warbaahinta madaxa bannaan ee Muqdisho wariyaal ka tirsan ay dabagal ay sameeyeen kadib lagu ogaaday caabuqa iyo waliba cudurkaasi qofka labaad ee u dhintay nasiib darro weyn ayaa lagu tilmaamayaa in wasaaradda caafimaadka ay diiday in la qaado bukaanka oo ambalaasta la sheegay cusbitaalka Digfeer ka soo qaadi lahayd ay dib isaga laabatay waxaana sababtaas lagu sheegay in cusbitaalka Martini loogu hayn ama aan weli u diyaarsanayn qalabka oksijiinka ee loogu talagalay in dadka lagu xiro magaalada Muqdisho ayaa la sheegay in qof hore u deganaa uu yahay xilli Shariif Maxamed oo 58 sano jir ahaa shalay dawladda federaalka ee Soomaaliya xaqiijisay inuu ugu dhintay cudurka coronavirus gudaha magaalada Muqdisho waxaana sidaas oo kale cabsida ay si laba jibaarantay iyadoo dadka qaar ay sheegayaan in cusbitaalka Banaadir la tilmaamay
in dhammaan shaqaalaha ku sugnaa iyaguna ay dowladdu karantiishay. hore cisbitaalka aadan cadde ayaa la sheegay in dadkii ku sugnaa la sheegay in la karantiilay. xildhibaan mahad maxamed salaad oo ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in qof ka mid ah shaqaalaha cisbitaalka Banaadir uu la wadaagay xog ku saabsan sida cisbitaalka uu ku shaqeeyo. arrinta cabsida leh ayaa ah in weli cisbitaalka uu wado shaqadiisii caadiga ahayd iyadoo ay joogaan in ka badan 50 qofood oo isugu jira dhaqaatiir iyo howlwadeenno caafimaad oo u tagay bukaanka u geeriyooday cudurkan dhowaan. qaar ka mid ah howlwadeennadaas ayaa waxaa la sheegay in la wargeliyey maanta oo khamiis ahayd in aysan tegin islamarkaana ay dareemayaan qandho iyo weliba dhuun xanuun. cabsida ayaana sii kordhaysa. halista ugu weyn ayaana hadda ah in cudurka uu kusii faafayo gudaha magaalada Muqdisho. dowladda ayaana xaalad degdega laga yaabaa inay soo rogto. wararka waxay intaas ku darayaan in madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare xasan cali qeerre shir albaabada u xiran ay habeennimadii xalay ku yeesheen xarunta madaxtooyada qaranka, waxaana ay ka arrinsadeen xaaladan iyo weliba sida laga wajihi karo. kulanka ayaa madaxda ugu sarreysa dalka waxaa ku weynaysay Foosiye Abiikar Nuur, wasiirka caafimaadka Soomaaliya, waxaana inta uu socday shirkaas diiradda lagu saaray xaaladda caafimaad ee dalka uu geli karo iyo sida bulshada looga badbaadin karo COVID-19 halistiisana ay aad u badan tahay. mas-uuliyiinta ayaa go'aan midaysan ka qaatay in dadaal kasta loo galo sidii ay uga guuleysan lahaayeen cudurkan oo Soomaalida inta badan ay wax wada cunaan, isa salaamaan, xabadgelinta iyo weliba isku imaatinadoodana ay aad u badan tahay. ilaa 12 kiis ayaana dowladda federaalka ay xaqiijisay in hadda laga warhayo, iyadoo Khaliif Muumin oo ka mid ah baarlamaanka Hirshabelle uu ka mid yahay xildhibaanada ama xubnaha la magac yaqaano ee 12 kaas kiisaska cusub ee laga helay ah. dhinaca kale, dhakhtar caan ka ah magaalada Muqdisho oo Jalaaludiin la yiraahdo ayaa waxa uu ka digay xaaladda cudurkan iyo saameyntiisa. wuxuu sheegay cabdirasaaq yuusuf axmed oo Jalaaludiin loo yaqaano kana tirsan guddiga sare ee loo xil saaray xakameynta xaaladaha cudurka COVID-19 ee Soomaaliya ayaa sheegay in xaaladda cudurka ee magaalada Muqdisho ay haatan tahay mid aad u halis badan, khatarteedana ay ka baqanayaan in uu ku dhex faafo bulshada. Muqdisho waxay wajihi doontaa toddobaadyo xanuun badan, dad badan buu soo ridan doonaa corona. wasaaradda caafimaadka shaqaalaheeda badankood baaritaan ayaa la marsiiyey maadaama 2 naga mid ah laga helay natiijada. waan arkaynaa ayuu yiri, waxaana xaaladdu ay hadda u muuqataa mid dadku ay warwar badan dareemayaan. gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya ee dhowaan la doortay Cali Saciid Fiqi ayaa ka jawaabay su'aal ay dad badan ka keeneen ka hor iyo kadib doorashadiisii. waxa uu dadka sheegay kuwa u cuntami weyday guusha uu gaaray, ayuu sheegay in dadaal badan lagu bixiyay isagoona ka mahad celiyay cid waliba oo ka qayb qaadatay guusha uu gaaray. gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed Cali Fiqi ayaa waxa uu sheegay in diblomaasi ahaan uu isagu xaq u leeyahay deegaankan uu ka soo jeedo, sidaas awgeedna doorashadii la galay isaga uu ku soo baxay. horta inta diblomaasiyadda aanan qaban waxaa ka horeysay inaan ahaa qof saynisyahan ah, cilmi baare ah. taa nafteeda waan ka soo tegay waddankii Soomaaliyeed oo aan aniga ka dhashay. intii aan taakulayn karo taakuleeyo. haddana waxaan gartay in ay muhiim tahay in waddanka uu ii baahan yahay. ogaada, wax waliba waxaa muhiima in qofka uu ka fekero. waxaan gartay inay muhiim tahay in waddanka gudihiisa wax laga qabto, ayuu yiri gudoomiye Fiqi. Cali Saciid Fiqi ayaa waxa uu intaas ku daray, waxaad ogaataan waddanka waa federaal, maamul goboleedyada haddaan la dhisin dowlad federaal ah oo adag ma jirayso. waxaa dadka qaar ay sheegeen oo la weydiiyey su'aal ahayd, dowladda federaalka ayaa muruq iyo maal kugu bixisay sida aad xilka ku qaban lahayd. wuxuuna ku jawaabay, horta meeshaan qarash ku baxay male. doorashadan waa doorashada keliya ee buuq aan ka dhicin. doorashooyinkii ugu dambeeyey waad la socotaan. waxaan garayaa buu yiri in wax kasta ay ku dhaceen sidii loogu talagalay. wuxuu ammaanay doorka xisbiga nabad iyo nolol ee dowladda federaalka, isagoo sheegay Cali Saciid Fiqi gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka koonfur galbeed in uu u mahad celinayo madaxweynaha maamulkaas Cabdilcasiis Laftagareen iyo cid waliba oo guushiisa ka qayb qaadatay. nabad iyo nolol run waaye, waan ka tirsanahay oo dowladdii baan ahay, laakiin meeshaan aan imid sababteeda waxaa iska lahaa madaxweyne Laftagareen, ayuu yiri.
taasoo muujinaysa cidda ku taageertay arrintani. wararka naga soo gaaraya caasimadda puntland ee magaalada garowe ayaa sheegaya in xilka uu iska casilay saacado ka hor agaasimihii guud ee madaxtooyada puntland maxamed cabdilatiif yuusuf. sababta weli lama sheegin, iyadoo istiqaalada warqadda uu qoray uu u gudbiyey madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani waana laga aqbalay sida la sheegay. iscasilaadiisa waxa uusan weli faahfaahin ka bixin cabdilatiif, balse waxaa la sheegay in uu dib kala wadaagi doono warbaahinta. ila muhiima oo wariyayaal ay ku jiraan iyo saraakiil madaxtooyada puntland ka shaqeeya ayaana noo sheegay in xurguf taagneyd muddooyinkii dambe uu isku casilay maxamed cabdilatiif agaasimihii madaxtooyada puntland, waxaana arrintan ilaa haatan faahfaahin ka bixin madaxda maamulka puntland, iyadoo sidoo kale laga yaabo in dhowaan lasoo magacaabo mas-uulka cusub ee bedeli doona sargaalkan shaqada ka tegay. dhinaca kale, madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa waxa uu sheegay in ay diyaar u yihiin wadahadalada ay la gelayaan dowladda federaalk ee soomaaliya. shir jaraa'id uu maanta ku qabtay magaalada hargeysa ayuu madaxweyne biixi sheegay in looga baahan yahay dowladda federaalk ee soomaaliya inay ka soo dhalaasho arrimaha looga baahan yahay, islamarkaana wuxuu baaq u diray madaxweyne biixi odayaasha dhaqanka. uu sheegay in waayahan dambe ay laba jibaareen ka hadalka wadahadalada somalilan iyo soomaaliya. wuxuu sheegay in odayaasha uusan door kaga furnayn wixii wadahadalana ay wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan u xil saaratay iyo weliba qaybta loogu talagalay in wadahadaladaas ay qaabilaan. qaar ka mid ah dadka reer somalilan ayaa u arka arrintan mid looga baahan yahay inay si qoto dheer uga fekerto jamhuuriyadda somalilan sida warka ay u dhigeen. guud ahaanna daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayna wararka soomaalida iyo caalamka. intaan wararkan oo kale dib isku arki doonno, nabadgelyo.